Ku-guurista xaaladaha nololeed ee kobaca bulshada deegaanka Feerfeer Soomaaliya waa qayb ka mid ah qorshe uu ku tagay musharax xildhibaan Mustaf Sabriye Xalane waxaana uu noqonayaa musharaxii ugu horreeyay ee u taagan kursiga golaha shacabka gaaray degmada Feerfeer. Degmada Feerfeer Soomaaliya oo ay ku haysato boqolaal shacab oo ka soo barakacay dhinaca gudaha Itoobiya iyo xuduudaba markaana helin wax gargaar ah ayaa musharax xildhibaan Mustaf Sabriye Xalane waxa uu ku horgalayay nolosha ka jirta deegaankaas iyo barakacayaasha ayaa wuxuu maanta kormeeray meelo badan oo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka iyo howlka shirarka dib u heshiisiinta iyo weliba halka ay degan yihiin barakacayaashu goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalo degmada Feerfeer aan lahayn waxa horta waa qadarka Ilaahay ilaahayna cid idinka xigta ma leh aniga idinkan ilaahay idin ma kala jeclo idinkana gooniyo idin imtixaamaya anna gooniyo idin imtixaamaya marka horta waa inaad ku sabartaan iimaankiina la fiirinan ilaahana qani ah binaadam waxba ha weydiisana ilaahay weydiista casa wajalla asigaas jooga beel caalam iyo hay'ado samafal iyo waxaas oo dhan iimaankiina ilaahay fiirinaya hadda ilaahay si toos u toogtid cid alle cidoo rabo kuugu soo dhiibaya meeshaas lagu iimaanaan meeshaas lagu iimaanaan wax alle wuxuu ilaahay ku qorayna lagu keenan marka number 1 ducada badiya ilaahay saani u tooga annaga dadkii deegaankan nahay insha Allah taala ciidaantiina meel kastaan gaarsiinayna cid alle cid wax nagala qabanaysa arintaas waa gaarsiinayna mustaqbalkana hadii ilaahay yiraah waxaan jecelnahay in guriyo laga dhiso oo geedo lagu abuuro oo musqulo la dhiso oo biyo aan gelina meeshan tubooyin hadii ilaahay yiraah inkastoo xaalad biyari ka jirto degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan dana waxa muuqanaya isbedel dhanka dhismaha ay sameysay degmada Feerfeer dhawaan lagu daafuray iskuulka hoose dhexe ee Feerfeer kaasoo ay ku boortaan in ka badan boqolaal arday Mustaf Sabriye Xalane kaasoo marna u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya soo socda wuxuu iskuulka deegaanka kula kulmay mid ka mid ah odayaasha deegaanka kaasoo isku xilqaamay ardiyeenta iskuulka maadaama uusan lahayn darbi ka celiyo xoolaha ugu dambeyn musharax xildhibaan Mustaf Sabriye Xalane markii booqashadiisa soo gabagabowday wuxuu shaaca ka qaaday badan ay u baahan tahay degmada Feerfeer Soomaaliya iyo gaar ahaan biyo nadiif oo laga hirgeliyo degmada gargaarisa barakacayaasha degmada iyo dhismaha iskuulka Feerfeer waxaanu baaq u diray dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle iyo wasaaradda caafimaadka kaloo jiro dad aad u fara badan oo maanta soo booqday oo barakacayaal ah oo dad maartiin xoolihii ka dhamaaday ama beerihii maartiin roob yaraaday xilli xun oo dayran oo lagu jiraan iyo qaar Itoobiya ka soo barakacay iyo qaar colaado ka soo barakacay inta waxay ku nool yihiin degmada Feerfeer waxay ku jiraan kaamo iyo buushash yar oo qoraxda ay ka hirgalaan ay dhistaan maamulka oo aan wax dhaqaale ah soo galin ayaa intaas maartiin la garab taagan oo ama bidaamis noqoto ama wixii kale kaalmo ah marka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka wasiirka caafimaadka wasiirka waxaan leeyahay dalkan maartiin oo adiga wasiirka ah wasiirka caafimaadkana ah degmadan Feerfeer ee gobolka Hiiraan dhibaataysan dhibaato xun baa ka jirta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
waxaan ka codsanayaa in ay fiiriyaan baahida ka jirto degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan. Hiiraan waa ka kacaysaa dhibaatada ay ku jirto, rag iyo rabbiyana leedahay. waxa dhibaatadan gaarsiiyeen waa nimanka siyaasiyiinta ee annaga matala. insha allahu tacaala isbedel xooggan ayaa ka dhici doona gobolka Hiiraan oo horey aan loo arkin. waan kula xisaabtami doonaa cid kaste, maamul kaste iyo dowlad kaste waxa ay nagu samaysay oo kula xisaabtami doonaa haddii ilaahay jiilka cusub xataa ma hilmaami doonaan.